kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Berbera ayaa saaka isugu soo baxay masallaha lagu ogo salaadaha ciidaha waxaana kala soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka iyo ka degmada Berbera salaada ciida kadib waxa halka kala hadlay shacabka magaalada Berbera isduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta Sheekh Maxamed Axmed Farraare duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin barasaabka gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan iyagoo hambalyo u diray munaasabadda ciida awgeed dadweynaha ku dhaqan gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera waxaana si isumida uga digeen dalxiisayaasha magaalada Berbera imanaya khatarta ay badda u leedahay gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland darafyada iyo kuwa dhexeba kuwaas oo xilligan yimaada badda xilliyada ciidaha waxaanu bayaaminaynaa oo cadaynaynaa oo madaxduna iga dambeyn doontaa xilligan baddu way kacsan tahay dadka aan xeeladaheeda iyo xaaladaha badda aqoon waxaanu leenahay walaalayaal way kacsan tahay baddu dadka waalidiinta waxaan leenahay caruurta insha Allah taala hal la ilaaliyo oo yaan badda lagu soo deyn cid aan ehelkii iyo caruurtii iyo dadkii mas'uuliyiinta ay la soconin maanta waa maalin farxadeed dadka reer Soomaaliland iyo dadka islaamka oo dhan iyo dadka reer Berbera waxaan leeyahay farxad ku ciida waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryayaa inuu inaga aqbalo cibaadadii salaadii markaanu taagnayn in saamaxaadii halkan laga dhawaaqay ay dadka muslimiintu is saamaxaan mar walba inay is saamaxaan mar kasta qalbiga nadiif ma noqdo qaar un baad ku reebaysaa waxaan leeyahay qaarna ku reebinay inta hadhay qof walba walaalkaas ka saamax dadka inoo imanaya ee geemanaya gobolada Soomaaliland oo ka imanaya ee u soo farxad tagaya ee imanaya badda iyo dalxiiska oo imanaya dadka reer Berbera waxaan leeyahay soo dhaweeya marka hore oo ka faa'iideysta dhaqaale ahaan uga faa'iideysta dadka imanayana waxaan leenahay farxad baa kaga timaadeen guryihiinii rayn iyo raaxaad u timaadeen murugaha la noqonina qofkaan dabaasha aqoonin waa inaan lagu sii daynin ilaan iyagaa og dadkan imanaya waa inaanay badda ku sii daynin ee ilaaliyaan ee ka warhayaan waa hambalyo dhammaan shacabweynaha gobolka Saaxil waxaan leenahay maxaan ku dhaciida ciideeda ku gaadha farxad bashbash iyo barwaaqo cirkana ilaahay madar khayr qab hay naga siiyo dhulkana ilaahay hay nooga soo saaro wax manfac leh ilaahay nooga soo saaro inta dhamaanba islaamka oo dhan oo ugu horeeyay Soomaaliland oo dhan iyo ummadda islaamku meel kasta ay joogaan waxaan leenahay hambaliyo intaas waa inta wuxuun baan taakiidinayaa iyadoo maanta maalin farxadeed ay tahay wuxuun baan taakiidinayaa dadka ay noo imanaya ee dabaasha badda imanaya ee dalxiiska oo inta badan dad dhalinyaro u badan inay aad u taxadiraan waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xeefo waxaana idinku wareejin doonaa istuudiyaheena magaalada Hargeysa Soomaaliya Cabdi Karin